Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhammaan ardayda ku soo dhawaada dhamaystirka casharradeennii ka dhinaa kooraskeenii koowaad. Haddaan soo furno curriculum-keennii koowaad waxaynu ku jirnaa casharrada u dambeeya. Anigu casharradan gaar ahaan idin dhigaya waxay ahaayeen 4 cashar ee ku saabsanaa internetka. Haddaan soo furno kii koowaad maalintii isugu kan dambeysay ama aynu fasaxa galnay ardayda waxa aan u dhigay casharka internet and computer security. So waxaynu ka hadlaynayna wuxuu ahaa sida internetka u shaqeeyo, sidoo kombiyuutarada ugu shaqeeyo, waxyaabaha lagu isticmaalay internetka. Sidoo kale waxaynu ka hadlaynay sideeba markaa internetka iyo kombiyuutarka labadoodaba loo secure garaya ama amnigooga ama loo ilaaliyo inaanay xogta ku jirtaa lumin. waxyaabo badan baynu ka soo hadalnay aad u fara badan. casharkeennii isugu kan dambeeyay wuxuu inoogu joogay haddaanan qaldanayn encryption. wuxuu inoogu joogay halkan buu inoogu joogay encryptionka. insha Allah halkan aynu ka bilaabaynaa. waxaan rajaynayaa maanta laga bilaabay iyo labada maalmood ee soo socda insha Allah inaan 4 casharba duubo oo dhamaystiro. ardayduna ay kala socon doonaan muxuu ahaayay si joogto ah dhowrka cashar soo socda ilaa Khamiista YouTube channel-keena Hargabitis. haddaynu encryption ka hadalno, encryption-ku wax kale maaha. horeynu u soo baranay internetku inuu yahay wire kaasoo isku xidha laba kombiyuutar. wuxuu u kala qaadayaana inay tahay xogta ama message-ka ama fariimaha waxa la isu dirayo, ama ha noqdo video ama sawir ama qoraal ama data kale ha noqdo inuu yahay. datada waxaynu nidhi marka la dirayo erey bixinta loo yaqaan ama terminology-geedu wuxuu ahaa maxay packages ayaa la yiraahdaa waxa kombiyuutarku dirayo. kombiyuutarkuna datada uu dirayo small packages buu diraaweynaa ama package yar yar oo la kala jajabiyay oo packages loo yaqaan ayuu diraa. package-da kombiyuutarku markuu dirayo haddii protocolka aad isticmaalayso ee kombiyuutarka wax ka diraysid iyo kombiyuutarka kale aad wax u diraysid u dhaxeeya ama communication protocolka aad isticmaalaysid, haddii uu isticmaalayo SSL encryption ama secure socket layer hadduu isticmaalayo, waxaynu nidhi qoraalka waa la bedelaa. waxa laga yaabaa markaad sawirkaaga dirayso inuu sawirkaaga de wax soo inuu plain text yahay ama sawir caadi oo readable oo dadka bini'aadanka akhriyi karaan ay fahmi karaan. laakiin kombiyuutarku markuu dirayo wuxuu u bedelayaa waxaan la akhriyi karin ama in readable character buu bedelayaa shay aan la akhriyi karin oo xarfa iyo calaamada iyo wax isku dhex jira. waxaas loo yaqaan maxay encryption. so encryption-kaas ujeedada looga jeedaa waxa weeyaan in shaygan ama xogtan ama macluumaadkan la dirayo ama waxaan aad diraysa ama sawir ama video ama qoraal ha noqdee inaanay haddii cidi hesho ama haddii cidi packageska network dhex maraya ay cidi capture garaysa ama qabato inayna si fudud u akhriyi karin ama u fahmi karin in fariintani asal ahaan wixii ay ahayd. so haddana qoraalka halkan ku qoranba sidaad arkaysaan maxaa la yidhi waa hab kaasoo loo bedelaya baa la yidhi maxay qoraalkii caadiga ama shaygii daatadii la akhriyi karayay mid aan la akhriyi karin ama ciphertext ama encryption text. so dhammaan communicationskaynu isticmaalayno dhan intooda badan ama website ha noqdo ama telephone calling ha noqdo ama waa intooda badan waxay leeyihiin maxay encryptionist bay isticmaalayaan oo ah maxay in datada dhex maraysa internetka in la hiding gareeyo la bedelo. so kombiyuutarka datada diraya wuxuu u bedelayaa wax aan la akhriyi karin ama wuxuu ku sameynayaa datadaadii encryption. kombiyuutarka fariinta helaya ama message-ka helayana wuxuu awood u leeyahay maxay in markay fariinta ama message ama packageskaasi soo gaadhaan inuu ku sameeyo isaguna wax la yiraahdo maxay decryption oo si uu ogaado maxay original message-ka ama fariintii saxda ahayd ee waxaan datadan wixii ay ahayd ee originalka si uu u fahmo kombiyuutarkaas. so waxaasa loo yaqaan maxay encryption iyo decryption. so encryption waa habka loo bedelayo qoraalka. decryptionna waa habka loogu soo celinayo maxay sidii saxda ahayd markii hore ahaa. so kombiyuutarku markuu dirayo encryptionka sidaynu halkanba ku arkayno wuxuu raaciyaa wax la yiraahdo encryption key. so hadhowna kombiyuutarka datada helaya muxuu haystaa decryption key.
sidoo kale khataraha computerka laga ilaaliyo iyaguna maxay haayeen khatarta ku ah computerada ama securityga computer ama amniga computerada in la ilaaliyo waxa kamid ah maxay shayga kale loo yaqaan employee sabotage. employee sabotage waxa weeyaan tusaale ahaan shaqaalaha tahay shirkad baad u shaqaysaa dad baa kaala shaqeeya oo shaqaale kale oo shirkadda u shaqeeya saaxiibtin ama computeray leeyihiin oo isticmaalaan ama devices ama mobile ba ha noqdo ama iPad ba ha noqdo de shaqaalahan aad la shaqaysid waxa laga yaabaa qaar badan inaad taqaanid passwordadooda hadduu mobilkiisa yahay hadduu computerkiisa yahay waxyaabahaas oo dhan inaad taqaanid taasi riski weeyaan taasi waxay khatar ku tahay maxay shakhsiyadda qofka sidoo kale waxay khatar ku tahay maxay hayday shirkadda ama cidda uu shaqaynayo lafteeda khatar bay ku tahay waayo mar walba computerkan uu qofku ku shaqaynayo dee xog baa ku jirta fariin waxyaabaa ku jira de qofkan kale shaqaalaha ma garan kartid wuxuu samayn karo inuu eegi karo inuu delete garayn karo inuu daatada error gelin karo waxaasaa loo yaqaanaa maxay employee sabotage. so markaas haddaad tahay qof IT ka shaqeeya ama computers waa inaad iska ilaalisaa muxuu haayay weligaa ha ka tegin computerkaagoo furan ama mobilkaagoo furan miiska ha kaga kicin so taa weeyaan waa inaad ka taxadartaa. sidoo kale waxyaabaha tusaalayaasha muxuu haayay la helay ee la xidhiidha in shaqaalayaawga ka shaqeeya shirkadaha waxay noqdeen maxay waxyaabaha ama damage-ka keenaan in la ogaaday waxa ka mid ah in la ogaaday inay hardware-ka laftiisa muxuu haayay jabiyaan inay jabin karaan ama ay sababi karaan ama sidoo kale waxyaabo kale oo computerka lagu isticmaalay ama flash ha noqdo ama screenkiisa ha noqdo ama keyboardkiisa inay wax yeeli karaan sidoo kale maxay sidoo kale inay waxyaabo maskax ahaan ama caqli ahaan hadhow toole ku keeni kara dhaawac programyadii ama daatadii ku jirtay computerka ay sababi karaan sidoo kale inay daatadii computerka ku jirtay gelin karaan maxay daata aan sax ahayn ama error ay gelin karaan taasina ay hadhow toole keeni karta in systemkii ama daatadii ay crash garowdo sidoo kale inuu systemkii failure noqdo sidoo kale waxay keeni karaan inay ka delete gareeyaan data ama wax muhiim ah xog muhiim ahayd sidoo kale waxay keeni karaan maxay in computerkaaga waxyaabo muxuu haayeen backdoor ay gelin karaan oo hadhow toole systemkaaga ay control karaan oo kale ama somewhere remotely ay control karaan oo ay arki karaan wax kasto computerkaaga soo galaya ama ka baxayo kale sidoo kale inay daatadii kuugu jirtay bedeli karaan wax ka bedeli karaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha shaqaaluhu sababi karaan. khataraha kale ee computerka ku iman kara waxa kamid ah de computerka gabigiisood weydo computerka gabigiisiyo laga xadaba hada laptopka intaad mees saarataba aad weyda ka war daatadii ku jirteena meeday de wad la waayaysa sidoo kale maxaa kamid ah de xafiiskii ama dhismihii ama meeshii computerka ama qalabka computeradu ay yaaleen oo burburtaba maybe dagaal baa dhacay oo hub baa ku dhaco dhismiba uu burburay waxa laga yaabaa dhul gariir baa dhaco dhismiba dhulku la simay maybe daadad baa dhacay waxaan loo yaqaano muxuu ahay masiibooyinka dabiiciga waxa keeni kara short maybe computerku uu shidna dabku ku jiray dabkii oo kalaaba keenay muxuu ahay qarax ama explosion ku sababay so uu gubtay waxaasoo dhan waxay keeni karaan dhammaantood in daatadii la waayo taasina waa khatar kale oo loo baahan yahay in laga taxadaro oo computerka ka ilaaliso waxaasoo dhan ka taxadarteen sidoo kale khataraha kale computerska ku iman kara waxa kamid ah iyagana dadka hackerska ama dadkan mar walba weerara muxuu haayay computerada ee loo yaqaan malicious hackers wax kale ma aha waa niman programmers ama codeska yaqaan because computerku mar walba wuxuu fahmaa ama uu ku shaqeeyaa waa programmer so waxa lagu qorayaa program u design garaysan marka computerkaaga lagu furo ama uu ku dhex rangareysmo inuu computerkaagu aamuso ama computerkaagu cid kale controlkiisa uu gacanta u galo control kari weyda waxaas la yiraahdaa maxay malicious code ama program kuugu jiro marka istiraad saaka soo furuun corrupted ama sidii saxda ahayd uu computerka ugu shaqayn jiray aan u shaqaynin ayaynu oran karnaa waa maxay waa malicious software ama malicious code waxaas rag
baa intay qoraan dabeetana muxuu ahaayey dadka u qaybiya ama u soo dira iyagoo ama internet ugu soo diraya ama physical contactaba computerkaaga la sameynaya waxaasoo dhan in kuwaana la iska ilaaliyo marka waxaa jira shirkada ama kombaniyada markaynu ka hadlayno laba erey bixin bay isticmaalaan oo loo yaqaano muxuu ahaayey oo loo yaqaano maxaan idhahdaayey insider iyo outsider outsidersku waxa weeyaan dadka kombaniyada dibadda ka joogan kombaniyada u shaqaynin ee dibadda ka joogan kombaniga shaqaalihiisa aan ka mid ahayn ayaa la yidhaahdaa outsider cidda kombaniga ka shaqaysa ama shirkadda u shaqaysa waa insider haddaynu tusaale ahaan soo qaadano maanta maxaan idhahdaayey telesom oo kale ama dahabshiil dee rag baa u shaqeeya rag baa akoonadii lacagta privilege access ah saad baad iska tegaysaa xarunta mid baad ka horaysaa $100 iigu shub saadayda meenu awoodi karin hadhow toolintu akoonka galay inuu wuxuu kala samayn kara because waa full access waa full control qofkan systemka uu ku jira so waa insider so marka kombaniyadu waxay isticmaalaan maxay labada erey bixinaya maxay outsider iyo insider oo iyaguna dadka keeni kara hadhow toola ama khatarta ku ah in daatada la waayo ama khataraha ku iman kara muxuu ahaayey computerada ama xagga security-ga ku iman kara iyaga laftooda qayb bay ka yihiin marka malicious hackersku waa sidan horeba idinku soo sheegay waa dadka codeiska qoraya ee u diraya computerka deetana hadhow toola ama access garaynaya iyagoo aan ahayn qofkii saxda ahaa ama sharciyadda u lahaa inuu access gareeyo computerkan ama xogtan eego so marka dadkaasi waxay noqon karaan dadka kombaniga u shaqeeya sidoo kale waxay noqon karaan dadka kombaniga dibadda ka jooga labadaba way noqon karaan sidoo kale hackerska waynu isku ognay waa organizations waynu xagga dambe aynu ku arki doonaa dee dadkan hackerskii maybe sometime bay yihiin dad kombaniya waxaan ku shaqaysanayo crimes oo inay waxaan dhacaan sometime bay dowladaha laftooda adeegsanayaan si dowlad kale ama shirkad kale ama cid kale u waxyeeleeyaan ama xog uga xadaan so adeegsigoodu wuu badan yahay laakiin macnaha waa sidaa industrial espionage waxa weeyaan shirkadaha jira adduunka u design garaysan inay hacking ka shaqeeyaan deetana shirkadahaasi waxay agreement la galaan ama la shaqaystaan dadka inta badan crimeska ku shaqeeya ama dowladaha sidoo kale dowladahay la shaqeeyaan sidoo kale waxay la shaqeeyaan waxyaabaha loo yaqaano secret organizationska sida hay'adaha basaa sida waxyaabaha noocaas ay la shaqeeyaan ujeedadooduna waxa weeyaan in kolba qofkii u imaadee hawl uga baahda ay u fududeeyaan hawshu rabo inay u fuliyaan oo ah inay waxaa garayaan maybe company baa u imanaya ma soo odhanaya companygaasaan u baahanay maanta inaad xogtaa ama waxaa ii ogaataan ama aad haa garaysaan aad waxaa ku samaysaan iyagu lacagtoodun bay qaadanayaan dee shaqadooday qabsanayaan kuwaasaa loo yaqaanaa maxay ama kombaniyadaasaa loo yaqaanaa maxay industrial maxay espionage kaasina waa kuwaas cid walbana way adeegsan kartaa sidaynu xaggii horeba ku soo arkayna waxaynu soo aragnay in malicious hackers jiraan malicious hackersku waxaynu nidhi waxaan ay qoraan ama waxaan computerka xumeeyo marka hore waa code waa program waa application waayo computerkeenani waxaynu ognay sidiisaba wuxuu ku shaqeeyaa waa maxay waa softwares ama software applications buu ku shaqeeyaa so software applicationskani dee rag baa qora oo sameeyo code wax la yidhaha baa lagu sameeya ama programming language wax la yidhaha baa lagu sameeyaa ragkan hackerski markaa waxay qorayaan code ama application marka computer kale loo diray lagu dhex furo hadhow toole computerka aamusiinaya maxaa ka mid ah haddaba waaye malicious codeska waxaanaynu u naqaanaa ka mid ah viruska waxaanaynu naqaanaa viruseska wormska trojan horseska logic bomb waxaas oo dhani waa maxay waa program ama code la qoray weeyaan waa softwares kuwaasoo loo design gareeyey marka computer loo diro inay hadhow toole wax yeelaan computerka so kuwaasaa loo yaqaanaa maxay ama ereyga terminologyga maxay malicious codes cidda qortaana waayo waa dadka skillska programmerska leh ee weliba leh skillska muxuu haayay ataagaraynta ama weerarka computerada oo loo yaqaana maxay hackerska so malicious softwaresku haddaynu viruskoo kale eegno virusku maxaa la yidhi waa program code ama waa code segments ama waa layman koodhara kuwaasoo maxay samaynaya baa la yidhi copies replicators waa maxay macnaha
laban laabmaya ama koobiyeysmaya ama badanaya tarmaya af Soomaali muxuu noqonayaa tarmaya kaasoo lagugu soo dhajinaya ama lagugu soo attach garaynaya la yidhi maxay ama lagugu soo koobiyeynaya maxay file computerkaaga ku jiro aad isticmaalayso maybe computerkaaga maxay isaga jira maybe Google browser baa ku jira Google browser ood maalin kasta gashid ood YouTube iyo Facebook iyo waxaan ka gashid Soomaa so waxa lagu soo dirayaa malicious code virus waxaana lagugu soo dhex dirayaa maxay computerkaaga applicationka ku jira maxay browserka dabeetana hadhow toole markaad iska soo kacdeed computerkaaga shidideedna browserkii furtid automatically wuu code-kii lagu soo diray wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo maxay executable waa maxay running your platform inuu shaygani computerkaaga ku dhex kaco ama ku dhex shaqeeyo environmentka computerkaaga deetana maxaa dhacaysa in computerki in viruski ku dhex koobi garaysmo computerkaagii dabeetana uu kantaroolo oo uu waxyeelo computerkaaga ama hosting machine-kaaga ama hosting program-kaaga so virusku inta badan waxay sameeyaan maxay way kala koobiyeysmaan sidoo kale maxay hayde computerada kale ee ku xiran ama asee network kale ugu xiran wax buu yeelaa so kaasa la yiraahdaa maxay virusku maaha kan bili aadanka ku dhaceen noolaha ah maaha kan waa maxay waa software computerka software-kii ku jiray sida caadiga ah akhriyo jireed maalin kasta isticmaali jirtun baa markaad furto aanu computerka sida caadiga ah u akhriyeen because software-kaaga ama application-kaaga muxuu noqday corrupted ama qalad baa galay ardayda casharkeennii koowaad halkaas uu ku dhamaaday la socda casharka labaad